nidaam natiijada aan natiijada idin sheego markan oo si rasmi ah natiijada wareegga labaad oo ay ku tartamayeen 3 musharax waxay noqotay sida soo socota musharax madaxweyne mudane shariif sheekh axmed wuxuu helay 46 cod mudane musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu helay 97 mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu helay 184 saadaradeed waxaan u gudbaynaa wareegga saddexaad meeshiina fadhiya waxaa markaa ku tartami doona 2 musharax sida dastuurka uu qabo mudane warqadaha la bixi wax xumaaday ma jiraan hal baaqatay mooyaane 327 cod baa si sax noqotay waxaa wareegga saddexaad ku tartami doona mudane musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdulaahi farmaajo labadaasi marka xogeynta ha diyaariso warqadaha oo hana soo dedejiso من فضلكم ماشينا جوجا وريق سدحاد أن توصل سميننا من فضلكم ماشينا فديا وريق سدحاد أن سمينا نظام مدني النظام هنودم بيش شكلنا ولا لي الرالي هذا زكريا حلوان نقرأ هذا فريستا ميشينا من فضلكم فريستا بلا سيدا دتك سيدا داف نظام عن اسمقلنا من فضلكم اسمقلنا دتكينا ميشي ولا تان كتاقا يا اخي كوان نركب مدوم حياه كتاقا ميشي كل هذا ميشي مدني الرالي هذا عن اسمقلنا waxaa mahadsan jenaraal waad mahadsantahay waxaan u yeerayaa inuu kelmad noo jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud falyatafadal بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya beesha caalamka ee joogta meesha safaaradaha diblomaasiyiinta shacabka Soomaaliyeed ee na daawanayo ee telefishinada iyo shaashadaha hortooda fadhiyo dhammaan waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah
waxaan leeyahay dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo waddo dheer oo maxaanku idhahdaa dimuqraadiyadda xaggeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gebagabowday howl aad iyo aad u fiican ayaa dadka soomaaliyeed soo qabteen waddadii dimuqraadiyadda ayaanan soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso oo ah dalkan taladiisa in si dimuqraadi ah laysku weydaarsado ayayna soo gaarsiisay waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay maxamed maan farmaajo oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa walaalkay farmaajo inaan dhaho hambalyo xilka allaha kugu guuleeyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay la garab istaago madaxweynaha cusub dalkuna horaha u socdo dimuqraadiyadduna horaha u socoto soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato dimuqraadiyadda iyo dawladnimada soomaaliya ha dhaqan gasho guulaysta adinkani wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu بسم الله walaalayaal barnaamijka ma dhammaanin buuqa naga daaya dhaartii baa dhiman weli brotokoolka ma dhammaanin buuqa iga daaya inta meesha tagana gadaal iga tega gadaal u taga kulligiina go back gadaal u taga gadaal war helo maxkamadda sare loo yeero iga fogaada kale kitaabka walaalayaal faraaqana si allahu nabi calaykum بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه وسلم مدنيال dhaartani waa dhaar dastuuriya dastuurkaa waajibiyey in lagu dhilma la mariyo qof kasta oo qabanaya xilka madaxweynenimada dhaartu waxay ka kooban tahay
afar dhidib oo aasaasiya qof dhaaranaya cid loo dhaaranayo wax lagu dhaaranayo iyo odhaahda amaba siiqada waxaa dhaaranaya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah wuxuu ku dhaaranayaa dastuurka ilaahay waxaad iga daba odhanaysaa dhaartan aan ku akhriyi doono waxaad tidhahdaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u fududeeyo inana aynu noqonno ummad adeecda soomaalina ay guulaysato bismi illah alxamdu lilaah dadka soomaaliyeed dhammaan mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo dadweynaha soomaaliyeed ee dalka soomaaliya ku nool guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo qurba joogta iyo dhammaan codsiga ugu dambeeya ee halkan aan galabtay caawa uga jeedinay waxay tahay in si dhab ah oo aad iyo aad u xoog badan oo hagarla'aan ah in loola shaqeeyo madaxweynaha cusub si uu waajibkiisa u guto dalkeennuna uu hore ugu sii socdo haddii aan la yidhaah mar kale maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha cusub waxaan leeyahay hambalyo dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهد له وما أنت كسوك هاي كيني وحان مهد علنا إياه حلي بانا الشرفت له oo isbedel doonka ah kuwa codkoodii isiiyey iyo kuwaan codkoodii isiinin maanta xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka Soomaaliyeed guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan waa bilawgii guushaan waa bilawgii midnimada Soomaaliyeed waa bilawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed waa bilawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed waa bilawgii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahdo core value ama aasaas ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino aan caawinno insha Allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad inta taas laga gaarayo waa mahadsantihiin Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Soomaali ha midowdo waa mahadsantihiin walaalayaal waxaan rabaa aan iloobay raaliga ahaada inaan u mahad celiyo murashaxiintii oo dhan oo sanad muddo laga joogo soo shaqaynayay waxaan rabaa si gaar ahaaneed inaan ugu mahad celiyo madaxweynahaygii hore Shariif Sheekh Axmed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaheena qaranka oo si nabada oo wanaagsan oo smooth ah ku wareejiyay xilka madaxweyne waa mahadsan tahay الله كحفظه صومالي الله حفظه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدن حوينة
guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye ku-xigeenada xildhibaanada sharafta leh wasiirrada iyo saraakiisha dhammaan ka soo qaybgalayaasha bahda saxaafadda maanta waa maalin weyn ficilna waa maalin weyn geeddi socodkii maxay ahaato doorashooyinka waxay ku soo dhammaadeen madaxweyne farmaajo inuu ku guulaysto maanta waa u hambalyaynaynaa waxaanna u rajaynaynaa guul ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay waa cusub gasho walaalkay madaxweyne xasan sheekhna waa mahadsan yahay inuu maanta si furfuran oo farxad leh u wareejiyey xilkii waana la shaqay doonnaa waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanka toddobaad ee aqalka wadajirka ahaa waa noo xiran yahay marka calaa barakati illaah